السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aan bal su'aal ku weydiiye maxaad samayn lahayd haddii ay arrintan oo kale kugu dhici lahayd? Tolow arrintu waa maxay? Yaanan ku daahinin, ila soco. waxay ahayd tuulo fisqigu iyo fasahaadku ku faafay dadkeeduna ahaayeen xumanfalayaal ku xididaystay falidda xumaanta. waa meel cagta la saaray waddadii hoogga iyo halaagga, dadkeedoo idilna wanaagga way ka leexdeen oo xumaantay u weecdeen, dhagahooduna waa diideen inay maqlaan samaha oo xumaan bay saldhigteen. tuuladaasi sidaasi ah ayuu ninkani u adkaysan waayey, wuxuuna arkay inay tahay meel uu ka soo socdo ciqaab, oo haddaan warkiisa la dhagaysanayn taladiisana la qaadanin buu is yidhi tolow iskaga tag meeshan, yaan dadkan halaagooda adigana lagugu darine. waa uu soo dhaqaaqay. wuxuu ahaa qof ilaahay ku xihan, cibaado badan, dadka wanaagga u sheegi jiray, balse isaga warkiisa waa la diiday in la qaato oo cidna dheg jalaq uma siin. goor ay dhowdahay salaaddii casir ayuu ka soo hayaamay halkii uu ka degnaa tuuladii hadafla'aantu haraysay, oo wuxuu soo socdaba waxaa la gaaray xilligii salaadda casir. meel aan geeda lahayn, saxarana u eg oo bannaan ah ayuu soo gaaray. salaaddii duhur baa u dhowrneede wuxuu galay salaaddii casir. dhowr daqiiqo kadib, isagoo salaadda ku dhex jira ayaa waxaa hortiisa ka soo muuqday mas aad u weyn. dabcan qofku waa binu aadam, oo fikirro badan ayaa maskaxdiisii ku soo faafay, kuwaasoo farriintoodu ahayd war meesha ma isaga fiigtaa oo ma ka fakataa. balse taasi muu falin. salaaddiisa ayuu sii watay isagoo maska eegaya. maskii sida uu u soo socday, markuu u soo dhowaaday meesha uu ku sujuudi lahaa ayuu maskii istaagay. ninkii wuxuu is yidhi salaadda ha ka bixin, oo wuxuu is yidhi rabbigaa weligaa waad ku xirnayd ee ha ka bixin salaadda oo dhammaystiro. salaaddii ayuu sii watay oo intii u dhimanayd ayuu dhammaystiray. maskii sooma dhaqaaqine inta dib u jeestay ayuu iska tegey. ninkiina halkii ayuu socodkiisa ka sii watay, bal si uu u tago meel meeshan ka khayr badan oo dadkoodu wanaagga ay weheshadaan. haddaba qof kasta oo muslima waxaa looga baahan yahay haddii uu arko xumaha inuu reebo, waa haddii uu awoodo. haddii uu gacanta ku reebi waayo, carabka ayuu ku reebayaa oo kala hadlayaa dadka. haddii taa anfici weyso, qalbiga ayuu ka nacayaa, ilin wax kale ma fali karee. balse haddii meesha xumaantu ka badato oo adiguna aadan waxba ka tari karin, dhulka ilaahay waa waasic ee iskaga tag oo raadi meel wanaaggu hoggaanka hayo, xumaantana laga weecday. haddaba ugu dambayn, walaalkaygow iyo walaashayday waxaan idin leeyahay wanaagga u heelli oo xumaanta ka weeco.